ku-xigeenka duqa maamulka magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in talaabo laga qaadi doono kooxihii ka dambeeyay falkii habeen hore ka dhacay magaalada Addis Ababa. Wariyaha ATV Maxamed Maxamuud ayaa noo soo koobaya faalla xidho warkan. ku-xigeenka duqa maamulka magaalada Addis Ababa Engineer Takala Uma ayaa sheegay in sharciga la horkeeni doono xubnihii ka dambeeyay dhacdadii ka dhacday xaafadda loo yaqaano Hayarat ee ka tirsan wax magaaleedka Boole waxaana uu shir saxaafadeed u qabtay ku-xigeenka duqa maamulka magaalada Addis Ababa oo ku sheegay in dhacdadii ka dhacday magaalada Addis Ababa gaar ahaan xaafadda Hayarat habeennimadii hore ciidamada xoogga amnigu tallaabadii ay qaadeen ay ku dhinteen laba qof ku-xigeenka duqa magaalada Addis Ababa Engineer Takala Uma waxa kale oo uu sheegay in uu dhacdadaasi u ka raaligelinayo dadka aaminsan diinta Kiristanka oo isla markaasina uu tacsiyadeynayo eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen labadii qof ee dhacdadaasi ku dhintay dadka diinta Kiristanka aaminsan ee goobtaasi ku sugnaa oo sheegaya in codsigaasi uu ahaa mid 12 sanadood ka hor la gudbiyay oo ay arrintaasi dhacday ay u arkaan mid ay geysteen xoogagga amniga ee dawladdu isla markaasina ay si kulul uga soo horjeedaan in xilli habeenimo ah tallaabadaasi la qaado. daawadayaal wali waxaad nagala socotaan waa telefishinka qaranka Itoobiya laantiisa afka Soomaaliga. Ra'iisul Wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed ayaa magacaabay mas'uuliyiin kala duwan. mudane Masfin Malako ayaa waxa loo magacaabay wasiir dawlaha lehna awoodda madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha. Dr. Shimet Gizao ayaa waxa loo magacaabay madaxa fulinta ee hay'adda sirdoonka iyo shabakadda isgaarsiinta ee dalka. Kefiyalo Tafarraq ayaa waxa loo magacaabay ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay'adda sirdoonka iyo shabakadda isgaarsiinta amniga ee dalka. Warqo Gajana ayaa waxa loo magacaabay agaasimaha fulinta ee xarunta cilmi baarista sirdoonka iyo xaqiraadiska. Marwa Salalam Mengistu ayaa sidoo kale waxa loo magacaabay ku-xigeenka komishinka booliska federaalka haniraade Salalam Mengistu ayaa waxa loo magacaabay ku-xigeenka komishineerka booliska federaalka. warkan ayaa waxa uu naga soo gaadhay xafiiska ra'iisul wasaaraha. sidoo kale guddiga joogtada ee golaha baarlamaanka u qaabilsan dhanka sharciga arrimaha sharciga cadaaladda iyo dimuqraadiyadda ayaa ugu baaqay maxkamadaha in ay sii xoojiyaan adeegga ay u fidinayaan bulshada. wariyaha ATV Habboon Cali ayaa inoo soo jeedinaysa faalo la xidhiidha warkan. guddida joogtada ah ee golaha wakiilada shacabka u qaabilsan arrimaha sharciga cadaaladda iyo dimuqraadiyadda oo kormeer 4 maalmood ah socday ku sameeyay maxkamadaha guud, maxkamadda sare, maxkamadaha heerarka koowaad iyo maxkamadda shareecada ayaa warbixinta natiijada kormeerkaasi iyo su'aalo u soo bandhigtay mas'uuliyiinta maxkamadahaasi ka socday. haddaba xubnaha guddigaasi joogtada ah oo soo jeediyay in maxkamadaha looga baahan yahay in ay kala soocaan macaamiisha dhabta ah ee adeegyadaasi maxkamadaha soo doonanaya iyo dilaaliinta macaamiisha ku soo dhex dhuumanaysa. gudoomiyaha maxkamadda guud ee federaalka Marwo Maaza Shanafi oo ka jawaabtay hadalkaasi guddigaasi ka soo yeedhay ayaa sheegtay in haddii ay jiraan dilaaliin hab shaqayntaasi maxkamadahaasi soo dhex galaysa ay taasi tahay mid si xun u dhaawacaysa geedi socodka bixinta cadaaladda ee maxkamadaha oo sidaasi awgeed arrintaasi baaritaan lagu samayn doono oo tallaabo ku habboon laga qaadi doono. waxa kale ay guddida ay soo jeediyeen in barnaamijyada ay idaacaduhu ka sameeyaan kiisaska maxkamadaha ka socda ay dhibaato u geysanayso go'aan gaadhista saxda ah ee maxkamadaha oo ay taasina tahay mid sixitaan iyo taxadarba u baahan. waxaa kaloo ay guddidu soo jeedisay dadaalada ammaanta mudan iyo kuwa sixitaanka u baahan. deegaanka Gambela ayaa lagu soo waramayaa inuu ka mid yahay deegaanada ugu kheyraadka badan ee dhanka kalluunka soo saara ee dalka, balse warbixino ayaa waxa ay sheegayaan in bulshada ku nool deegaankaasi ay ka cabanayaan wax soo saarka suuqa ee dhanka kalluunka. wariyahayaga ATV Xamdi Maxamuud ayaa soo jeedinaya faalo la xidhiidha. dalkeena Itoobiya goobaha ugu badan ee kheyraadka kalluunka laga helo waxaa ka mid ah deegaanka Gambela. goobaha ugu badan ee kalluunkaasi laga helana waxaa ka mid ah biyo xidheenka Alweero. halkan waxaa isugu yimaada dhalinyar aad u badan oo ka kalluumaysata kadibna suuqa geysa. hase ahaatee dhalinyaradan ayaa ah kuwa ka cabanaya suuq la'aan kadib marka ay soo kalluumaystaan ku timaada ama ay yar yihiin gooba ay u iibgeeyaan.
markaanu u iibgeyno magaalooyinka waxaa nagu dhacda suuq la'aan ama intaanu dhexda sii soconno aan sii wadno ayuu xumaadaa markaas kalluunka dhani aanu soo kalluumaysanay waxaa naga soo gala 200 ilaa 300 dhanka kale dhinaca noolka ayay dhibaata naga haysataa haddaba aaggan ayaa ah meelaha ugu badan ee laga helo khayraadka kalluunka sida uu sheegaya madaxa xafiiska xoolaha iyo khayraadka kalluunka ee degmada Abaabo mudane Nick Ijilu isagoo cadeeyay in marka loo eego degmo ahaan kalluumaysigu shaqo abuur u yahay dhalinyarada balse caqabada haysata ay tahay suuq la'aan iyo meel ay u iibgeeyaan oo aan jirin 92 የተደራጀው ማህበራት ናቸው waxaa jira iskaashatooyin ka shaqeysta kalluumaysiga iskaashatooyinkaasina ma wada haystaan qalab ku filan oo ka saacida kalluumaysiga sidaa daraadeed maaha kuwo soo wada gala shaqada sidaa daraadeed waxaanu ku hawlanahay sidii aan uga shaqayn lahayn ama uga caawin lahayn qalabyadaasi iyo sidii suuq loogu heli lahaa marka ay kalluumaystaan waxaa kale oo la sheegayaa in khayraadka kalluunka ee deegaankaasi leeyahay aan dawladda iyo bulshadaba sidii la rabay uga wada faa'iideysan sidoo kalena looga fadhiyo maalqabeennada deegaankaas inay suuqeyn u sameeyaan khayraadkaasi kalluunka deegaanka Gambela haddaba deegaanka Gambela ayaa sanad walba waxaa la awoodaa in laga kalluumaysto kalluun dhan 730 milyan oo tan oo kalluun ah balse kaliya inta laga faa'iideysta ay dhan tahay 1.5 milyan oo tan aysan ka badnayn wagaag heshiiskii wadahadallada ee webiga Abaay oo ku saabsanaa ayaa la sheegay in uu hakad ku yimid kadib markii loo guul daraystay natiijada heshiiskii dhaxmartay wadamada webiga Abaay wadaaga habboon cali ayaa soo jeedinaysa fal la xidhiidha warkan dhawaan shirkii wadahadalka ahaa ee ka socday Washington ayaa la sheegayaa in ay Itoobiya ku guul daraysatay balse Itoobiya wada dadaalo kale oo ay ku soo bandhigto cadeymaha ay leedahay kulankani wadahadalka ah ayaa lagu raadinayay xalka webiga Abaay wadahadallo dhaadheer kadib ayaa Itoobiya laga waayay cadeymihii looga baahnaa in ay soo bandhigto ስምምነቱ ይፈረም አይፈረም የሚለው ሌላ ዳይሜንሽን ነው ይፈረም አይፈረም በእኛ በኩል ያለን አቋም እዛው ውስጥ የተስተካከለ hal saxiixa iyo lama saxiixayo maaha mid aanu hadda ka wada hadlayno go'aanka heshiiska saxiixa waxaanu qaadan doonaa waqti munaasib ah ama markaan helo cadeymo waadix ah oo dhammaystiran oo ku salaysan sharciga heshiiskayaga haddii ay la soo daristo caqabado ama dhibaato waa in la helo waddo lagu xallin karo waxaa loo baahan yahay in arrimahaas oo dhan laga fiirsado sidaa daraadeed waxaanu u baahannahay waqti xaadirkan waqti inta uusan dhicin saxiixaasi wasiirka biyaha waraabka iyo macdanta ee dalka Itoobiya mudane Salashi Baqale ayaa hadalkiisa raaciyay in ay diyaargarow adag u sameynayaan heshiiska wadahadalka ku salaysan webiga Abaay waxaana diyaarsanaynaa la taliye sharciga ah oo inoo soo diyaariyay 4 cadeymo oo ugu waaweyn hayna cadeymahaasi naga caawin doonaan in aan si wada jir ah uga faa'iideysano webiga Abaay ተብሏል በአንድ በኩል ከሌላ በኩል የዚህ ውሃው የኔ ብቻ ነው የሚለው አቋም ተገቢ አለመሆኑ ግልጽ ነው በሌላ በኩልም ስንመለከት በእኛ በኩል የሚፈሰው ውሃ dhinac ma taageersanin in la yiraahdo biyaha annaga kaliya ayaa iska leh in la yiraahdo dhanka kalena biyuhu maadaama ay na soo marayaan annaga ayaa iska leh ma odhan karna taas ayaa keentay dooda ballaaran ee na dhex martay waxaanu u baahannahay inaan si wada jir ah uga wada faa'iideysano waa inaanu isticmaalno si wanaagsan oo mustaqbalka Itoobiya wax weyn ka bedeli doona intaasi kadib ka soo qaybgalayaasha kulankaasi ee ku doodayay wadahadalkaasi waxay u egyihiin kuwa heshiiska u dhow balse wali waxaa dhaxmaraya dood adag oo ku salaysan heshiiska webiga Abaay beeraley ku nool gobolka bariga ee Goojam ee deegaanka Maxarada ayaa ka faa'iideysanaya wax soo saarka bunka oo dalkeenu uu hodan ku yahay waa kan Uriye Xamdi Maxamuud oo soo jeedinaya faal la xidhiidha warkan mudane Gasaajo Waale oo degan degmada Machaakal ee gobolka bariga Goojam oo dhul dhowr rubuc hektar ku beertay dalaga bunka ayaa sheegay in xilligii uu go'aansaday in uu ku dhaqaaqo wax soo saarka bunka uu shiki weyn kaga jiray in dhulkaas uu ka soo saari karo bun macno weyn u yeelan kara hagida noloshiisa balse kadib markii uu rabitaankiisii uu ficil ahaan ugu dhaqaaqay uu ku faraxsan yahay faa'iidooyinka uu beertaasi ka helay mudane Gasaajo waxa uu tilmaamay in uu markii ugu horeysay ka shaqayn jiray goob lagu abuuro geedaha kala duwan
ee la talaalayo kadibna ay dawladdu siisay fursad uu kaga qayb qaato tababar lagu qabtay magaalada Bikool oo dhacdadaas haatay ku dhalisay in uu talaabadan u dhaqaaqo ninkan beeraleydii waxa uu sheegayaa inuu ku guuleystay inuu beertiisa bunka ka soo saaro 7 kintaal oo welina bun qoyan oo mustaqbalka dhow la guri doono uu beertiisaasi ku yaalo kooxda horumarinta midhaha ee xafiiska beeraha ee degmada Machaakal ayaa sheegay in dhul beereed dhan 20 hektar ay bun ku beerteen xubno ka tirsan beeraleyda degmadaasi oo natiijooyin wax ku ool ah laga soo hooyay Marwa Blaynash Elebel oo ah horjoogaha kooxdaasi ayaa sheegtay in sanadkan suuqyada caalamka ay u dhoofiyeen 82 kintaal oo bun ah beeraleydu waxay sheegayaan in kastoo ay dadaal xoogan wadaan haddana cudurro beerahooda bunka ku dhaca uu wax soo saarkooda yareeyo heerka ay filayeen xafiiska beeraha ee degmaduna wuxuu cadeeyay inay dhibaatadaasi jirto oo ay muunado geedaha bunka laga qaaday ay u direen shaybaadh beeraha qaabilsan oo ku yaala magaalada Bahirdaar natiijadana la ogaaday oo xafiisku wada dadaalo uu dhibaatadaasi wax kaga qabanayo